xildhibaan barkad jaabac batuun ayaa isaguna qayb ka ahaa wafdigii ka soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha xildhibaan soo dhow ودوي علي هذه صاب تي في با وعن سجارة وسلامة صاحبك كيسة أحمد دجالة يعني سينيو يو بعض الجود صاب تي في أدبر ما سنت ودوي xafladda caleemasaarka madaxweynaha ee lagu dhaarinayay xildhibaanada golaha deegaanka ayaguna la isku dooranayay madaxweyne ku xigeenka dib loo dooranayay lagu jadiidinayd ka soo qayb gashay balka war wallahi runtii dani wax cajiiba nabadgelyada dhalinyar fara badan oo aqoonyahana oo runtii aqoon baa ka muuqata caasimadda isbedel baa ka muuqda waxa ka muuqda horumar ballaaran dhismayaal aniga dhowr 90 kiiba ugu dambeysay dhismayaal fara badan iyo magaaladii oo ballaarato oo kobacday si ilbaxnimo ku dheehan tahay oo dastuurkooda iyo shuruucdooda waafaqsan ay doorashadoodu u dhacday annaguna de wanaag bay noo hayd ka dalahaan iyo ka xildhibaan ahaan iyo ka dawlad ahaan Soomaaliland iyo ummad ahaan baynaanu qayb ka noqono oo ka soo qayb galno inaan de si gaar ahaan aniga madaxweynuhu casuumena sharaf bay ahayd oo aan imid waanu mahadnaqayaa madaxweynaha martiqaadkiisa de guuliyo wanaagii horumar baan u rajeynaya ilaahayna xilkaa ku asturo aad baad u mahadsantihiin qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber